xasan sheekh maxamuud madaxweynaha hore ee Soomaaliya oo ku sugan magaalada Beledweyne ayaa maanta ku booqday hoyga Beledweyne oo ka degan yahay ugaas xasan ugaas khaliif ugaas rooble oo kamid ah duubabka dhaqanka Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa gobolka Hiiraan. ugaas xasan ugaas khaliif ugaas rooble ayaa madaxweynaha hore ee Soomaaliya xasan sheekh maxamuud ku soo dhaweeyay magaalada waxaana uu sheegay in aysan xilligan wixii ka dambeeya wax xumaan aysan u qabin bulshada reer Hiiraan. madaxweynaha hore ee Soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud anagoo ku hadlayo magaca Hiiraan soo dhawow anagu wax xumaana iyo wax uqdara iyo wax mushkilada ma qabno. xildhibaan Cabdirasaaq Cumar Maxamed oo kamid ah mudanayaasha baarlamaanka dowladda Soomaaliya isla markaana ahaa wasiirkii hore amniga dowladda Xasan Sheekh Maxamuud qaybna ka ahaa wafdiga hogaaminaya madaxweynaha hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ee soo gaaray maalinimada shalay magaalada Beledweyne ayaa faahfaahin kooban waxa uu ka bixiyay kulanka ay wada qaateen madaxweynaha hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo ugaas xasan ugaas khaliif ugaas rooble iyo waxyaabaha ay ka wada hadleen ugaas xasan iyo waliba madaxweynaha hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. waxaan halkan joognaa magaalada Beledweyne waxaan imaanay shalay waa maalinkii labaad oo joogno ilaa Britain oo joogayna insha Allah waxaan u imaanay wafdi uu madaxweynaha hore Xasan Sheekh Maxamuud uu hogaaminayo aniga aan qayb ka ahaa gudoomiyaha xisbiga nabadda iyo horumarka xisbiga arrimihiisa qayb way ka tahay laakiin waxa ugu muhiimsan muhiimadda weyn oo imaanna waxay ahayd in madaxweynaha uu la hadlo shacabka reer Beledweyne is arkaan odayaasha dhaqanka uu la hadlo ugaasyada nabadoonnada maxaa la yiraahdaa dhamaantood uu wada arko uu qaabilo uu mid ula hadlo saasaan u imaanna waana maalinkii labaad subaxan ugaas xasan iyo madaxweynaha waa kulmeen kulan horulacay kulmeen. kulankani ayaa imaanaya xilli muddo ku dhow 2 sanadood ugaas xasan ugaas khaliif ugaas rooble iyo madaxweynaha hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ay ku kala maqnaayeen khilaaf siyaasadeed oo salka ku haya hannaankii dowladii hore oo hogaaminaya Xasan Sheekh Maxamuud ee wajahaysa qaab dhismeedkii maamul samaynta gobolada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe taasi way si aad ugu kala irdhoobeen ugaas xasan ugaas khaliif ugaas rooble iyo madaxweynaha hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud intuu hayay talada dalka. waxaana xilligaasi ka dhacay magaalada Beledweyne banaanbaxyo lagaga soo horjeeday hannaanka dowladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ee wajahaysa dhismaha maamulka Hirshabeelle. dhanka kale waa markii ugu horeysay ee kulan noocan oo kala ah warbaahintu ay goobjoog ka tahay isugu yimaadaan ugaas xasan ugaas khaliif ugaas rooble iyo waliba madaxweynaha hore ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud. Qaalid Maxamed Ismaaciil Kacse telefishinka caalamiga Soomaali News Beledweyne.